aad baan ugu mahad celinayaa guddigii maaragtay dastuurka labada qaybood ka koobnaa ee runtii ka soo shaqeeyay qodobadan dastuurka dowladda federaalka ee hor yaalla oo runtii ah kuwa maaragtay aad moodid in maaragtay wax badan oo aqoon iyo dadaal badan iyo waqti badan la geliyay waa mahadsantiin waa commentiskayga ku darsanaya commentka koowaad aan ku darsanaya waa qodobka 62 qodobka 62 gaar ahaan fikradiisa shanaad oo sheegaysa dowladaha dowlad goboleedyada waxa ku midoobi kara 3 gobol 2 4 oo deris ah iyagoo xor u ah go'aankooda midoobi karadaas waa choice mana ku midoobi karaan wayna ku midoobi karaan waa in la waajibiyaa waa inay ku midoobaan ku midoobi karada suurtagalnimada meesha ka saara baryaha waa aragtay maamul goboleedyo qolo kasta tuuladooda ay doonayeen inay gobol iyo maamul goboleed ka dhigato marka waa in dastuurkii horena laguma dhaqmin kanna waa in lagu dhaqmo la waajibiyaa oo wixii ka soo socda dastuurka waxba kama jiraan waan si cad looga dhigaa marka suurtagalnimada waa inaan meesha ka saarno qodobka saddexaad 63 oo isaguna ka hadlaya maqaamka caasimadda inkastoo caasimadda maaragtay ku soo ansixinay qodobadii hore 4 tahay oo haddana dib aynu u qalnay inuu furan yihiin waxaan qabaa caasimadda annaga aba u baahdo shuruudba ku xidhay maqaamna ku xidhay dowladda federaalka inay hoos timaado marka caasimadda maqaam intaynu u samayn lahayn hargeysada looga bedelaaban ka jeclaan lahayn halkii muqdisho lalahaa oo midnimada loo tanaasulo marka waxaan odhan lahaa caasimaddu iyadaasi bursimaadda sidaa ku qabta in dowladdii federaalka bayskeeda tahay inay maaragtay dhaqaalihii dowladda federaalka iyo wixii adduunyadu inagu caawisayba caasimadda ay galaan haynoo tanaasusho oo sidaa ha yeesho haddii ayna tanaasulayn annaga muddo hanu lagu soo wareejiyo muddo kooban oo midnimadaa ku soo celino hanu lagu wareejiyo haddaan saa la yeelayn wareegtaha laga dhigo soomaali waxbay isku haysataaye wareegtaha laga dhigo oo caasimad 10kii sannaba si dalku u wada dhismo isku soo gaadho 10kii sannaba in maaragtay gobol ka mid ah gobollada caasimad laga dhigo adeegyadii dowladdana markaa shuruud looga dhigo inuu gobolkaasi dowladda uu qaadi karo qodobka 69aad oo ka hadlaya doorashooyinka golaha fulinta maaragtay dowlad goboleedyada waxaan odhan lahaa waxaad tidhaahdeen dowlad goboleed kasta waxuu yeelanayaa gole fulineed oo ka kooban hogaamiye ku-xigeen oo ay dooranayaan golaha wakiilada iyo maaragtay xoghayayaal iyayna bulshada ka wada qaadin awoodda haddii dowladdii federaalka aan nidhi baarlamaanku ha doorto dib lagu soo celiyey runtii anigu waxaan qabaybay in dadweynaha maaragtay sidiisii hore loo daayo laakiin haddii loo batay in lagu soo celiyo maaragtay baarlamaanka federaalka inay doortaan golaha fulinta ee maaragtay ama madaxweynaha dowladda federaalka dowlad goboleedyadana iyana sunnaha marinin si awooddu shacabka ugu dhawaato waa inay doortaan golaha wakiil maaragtay shacabweynaha dowlad goboleedkaasi hogaamiyahooda waxaan rabnaa hogaamiye babulaara oo dadka u adeegaya oo maaragtay bulshada kalsooni ka haysta inay maamulaan gobolladii marka waa in maaragtay laga saaraa qodobka ah golaha wakiilada dooranayo awoodda loo celiyaa maxay ahaydee shacabweynaha oo la yidhaha shacabweynuhu ha doortaan markaynu muddo shacabweynuhu gobollada doortaan federaalkana aakhirka waynu bedeli doonaa dastuurkii waa leave document marka iyagana waxaan odhan doonaa shacabku ha doortaan mar kasta awooddu inay shacabku maaragtay leeyihiin waxay kor u qaadaysaa dowladnimada isla xisaabtanka madaxduna waxay sumcad iyo maaragtay taageero ka raadinayaan shacabweynaha marka halkaa ha laga noqdaan odhan lahaa waxaa ii xiga qodobka 79 oo awood u siinaya aqalka sare inuu ansixiyo haddii dowladda federaalka u baahato inay faragelin ku samayso dowladda maaragtay goboleed runtii qodobkaasi aad buu u fiican yahay waana taageersanahay si aan maaragtay dowladnimadu sideeduba waa isxakamayn waa hay-adba waa inay hay-ad xakamaysaa marka waxaan aad u akinayaa oon taageersanahay in golaha aqalka sare uu awooddaa yeesho ansixinta uu ku ansixinayo haddii faragelin lagu samaynayo dowlad ka mida dowlad goboleedyada waxaa intaa ii dheer cutubkan wuxuu wataa 3 jadwal oo midina awoodda dowladda federaalka uu ka hadlayo jadwalna awoodda dowladaha goboleedyada ka hadlayo jadwalna uu ka hadlayo awoodda dowladaha hoose
jadwalka haddii aan ku horeeyo ka awoodda dowlad goboleedyada ka hadlaya tusaale ahaan qodobkiisa 8 waa jadwalka C waa jadwalka labaad C wuxuu qodobkiisa 28aad wuxuu sheegayaa imtixaamaadka iyo shahaadooyinka dowladaha dugsiyada hoose iyo dhexe ayuu awood u siinayaa dowlad goboleedyada nidaam federaalan qaadanay federaal inaan qaadanaa micnaheedu maaha inay gobollo maamullo ah oo golo wakiilo leh madaxweyneyaal leh wasiirra leh inaan dhisano micnaheedu muu ahayn micnaheedu wuxuu ahaa in adeegyada la federaaleeyo haddii imtixaan dugsi sare muqdisho uu ku xidhan yahay haddii wiilka ku dhasha gobolka ugu kooneeya ee dalka afartiisa jihada uu imtixaankiisa shahaadiga ka sugayo muqdisho ama xarunta dowladda federaalka weli adeegyadii lama federaaleyn marka waxaan qabaa saddexda heer ee maaragtay dugsiyada waxbarashadaba in la federaaleeyo oo laga dhigo kuwa ay dowlad goboleedyadu maamulaan waa adeegyadii bulshada loo maaragtay dhaweeyaa marka awoodda maaragtay aad ku soo koobteen dugsiga hoose iyo dhexe sarena waa in lagu daraa adduunyadana inteeda badan waxbarashadu ma aha maaragtay mid centralized waa mid decentralized hadday centralized noqoto ma garanayo in horumar badan laga gaarayo waana sidii ay ahaan jirtay arday koonaha maaragtay dalka ku dhashay oo bulsho u joogin halkan maaragtay cid u joogin in magaalada marti ku noqdo shahaado soo raadsada ama imtixaankiisa wax laga saxayo oo u yimaado maaragtay xarunta maaragtay dowladda federaalka waxa inta dheer jadwalka maaragtay iyo jadwalka C wuxuu laba awoodood oo iska hor imaanaya ku jira tusaale ahaan jadwalka maaragtay qodobkiisa 12aad wuxuu ka hadlayaa maaragtay qodobka 12aad ee jadwalka wuxuu ka hadlayaa maamulka doorashooyinka hal guddi oo maamulaya doorashooyinka saddexda heer waa awoodaha dowladda federaalka buu jadwalkaasi sheegaya isla jadwalka maaragtay D qodobkiisa labaad wuxuu ka hadlayaa isaguna jadwalka D jadwalka C qodobkiisa labaad isna wuxuu ka hadlayaa maamulka doorashooyinka heer federaal maamulka doorashooyinka heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo heer deegaan oo yeelanaya hal guddi oo maamulaya saddex doorashooyin saddex heer ah awoodihii maamulka guddiga doorashooyinka waxaa hoos geysteen dowladda federaalka oo jadwalka C jadwalka maaragtay ah qodobkiisa 12aad iyo jadwalka C iyo awoodaha dowladda maaragtay dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka qodobkiisa labaad marka ka in la kala saaro oo meel lagu soo koobo la yiraahdo dowlad goboleedyadu doorashooyinkooda maamulanayaan laba heer ah oo ka dowladaha hoose iyo wakiiladooda ah iyo ka madaxdooda ah iyo dowladda federaalka wixii maaragtay doorasho federaal ah in sidaa loo kala dhigaan ayaan ku talinaa aad iyo aad baa u mahadsantahay